السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا أقوان دون channel وعشر كيني شناد مادة C Programming Language وحان اوغا هادلي دونا if statements balse intaynu guda gelin qaybteeni practice-ka bal fikrad guud aan ka qaadano waxa if statements ay tahay. If statements waa programming conditional statements. Waa statementiyo hadday sax noqdaan qaban doona shaqadii loogu talagalay oo soo bandhigi doona xogtii loo dhiibay oo markaa loo baahnaa inay soo bandhigaan. waana statementiyo shaqeeya kaliya marka ay noqdaan sax. bal aan isla aragno sawirkan. Sawirkan waa sawirka ugu fudud ee aan ku fahmi doono if statement. halkan waxa inooga muuqato condition. sidoo kale halkanna waxa inooga muuqato conditional code. halkanna waxa ka muuqata if condition is true. halkanna if condition is false. sidaan arkayno condition-keena hadduu noqdo mid sax ah waxaan u gudbi doonaa qaybta conditional code-ka. waxaana loo soo bandhigi doonaa code-kii aan u dhiibanay waa haddii statementigu uu noqdo mid saxan oo true ah. balse haddii statementiga uu noqon waayo mid saxan oo uu noqdo mid khalad ah nalooma soo bandhigi doono qaybta conditional code-ka. aynu u gudubno qaybteeni practical-ka. ugu horreyn aynu soo kicino tool-ka ama application-ka aan adeegsanayno. tusaalaha waxaan rabnaa inaan ka dhigno program inoo soo bandhigi doono qof sanadkiisa. waxaan u dhiibi doonaa 3 xaaladood oo kala duwan. waxaan dhihi doonaa xaaladda koowaad haddii sanadka la soo geliyay uu ka weyn yahay 20 waxaad inoo soo bandhigtaa sanadka aad soo gelisay waa mid ka weyn 20. xaaladda labaad haddii sanadka la soo geliyay uu la eg yahay 20 waxaad ii soo bandhigtaa sanadka aad soo gelisay waa mid la eg 20. ugu dambeynna xaaladda saddexaad haddii sanadka la soo geliyay uu ka yar yahay 20 waxaad ii soo bandhigtaa sanadka aad soo gelisay waa mid ka yar 20. aynu u gudubno coding-ka. ugu horreyn marka waxaan abuuranaynaa variable. waxaad tiraahdaa int kadib waxaan u bixinaynaa magaca waxaan ka dhigaynaa sanadka. intaa markaan dhahno waxaan leenahay comma. programkeena markii la soo kiciyo waxaan rabnaa shaashadda isla markiiba inaan ka aragno soo geli sanadka. marka waxaan abuuranaynaa printf kadib waxaad tiraahdaa double quotation. intaa markaan sameyno waxaan leenahay marka soo geli sanadka. kadib waxaad ku soo xiraysaa semicolon. si aan marka soo gelida aan u isticmaalno inaan gudaha wax ka soo gelino waxaan leenahay scanf. waxaad tiraahdaa double quotation. maadaama variable-keena uu ahaa integer waxaan leenahay %d kadib waxaad tiraahdaa comma. waxaan leenahay marka hadda calaamadda and waxaan u dhiibaynaa sanadka. intaa markaan sameyno waxaan ku soo xiraynaa semicolon. hadda ayaan u baahannahay marka inaan u dhiibano xaaladii ugu horeysay ee ahayd haddii sanadka uu ka weyn yahay 20 waxaad ii soo bandhigtaa sanadka aad soo gelisay waa mid ka weyn 20. waxaad leedahay enter. waxaan u dhiibaynaa marka xaaladii ugu horeysay. waxaad tiraahdaa if waa haddii waxaad furaysaa brackets kadib waxaan ku qoraynaa sanadka. waxaan leenahay marka sanadka haddii uu ka weyn yahay sanadka marka waxaan taabanaynaa calaamadda ka weyn 20. if sanadka uu ka weyn yahay 20 macnaha waa haddii sanadka uu ka weyn yahay 20 waxaan rabnaa marka inaan soo bandhigno sanadka aad soo gelisay waa mid ka weyn 20. waxaad furaysaa braces kadib waxaad tiraahdaa enter. waxaan leenahay marka printf. hadda ayaan soo daawacinaa marka sanadka aad soo gelisay waa mid ka weyn 20. waxaad ku soo xiraysaa semicolon. waxaan sameynay xaaladii ugu horeysay. maadaama step-yada aan mari doono ay yihiin kuwo isku mid ah yaynan waqti badan ku luminin kaliya waxaan adeegsan doonaa copy paste. waxaan soo koobiyin doonaa xaaladii koowaad annagoo copy ka sameyn doona. kadib waxaad leedahay paste. markale waxaad tiraahdaa enter paste oo waxaan ka dhigaynaa 3 xaaladood.
xaaladda koowaad waxay ahayd haddii sanadka uu ka weyn yahay 20. xaaladda labaad waxaan ka dhigaynaa haddii sanadka uu la eg yahay 20. marka calaamadda ka weyn waxaad ku beddeshaa equal oo ah haddii sanadka uu la eg yahay 20. meesha ka weynna waxaad ku beddelaysaa sanadka aad soo gelisay waa mid la eg 20. ugu dambeynna calaamadda ka weyn waxaad ka dhigtaa ka yar ama less than. sidoo kale meesha ka weynna waxaad leedahay waa mid ka yar. aynu kicinno programka build and run. saa arkaysaan halkan waxaa inoogu qoran soo geli sanadka. waxaan ku hormarayaa xaaladii ugu horeysay ee ahayd haddii sanadka uu ka weyn yahay 20 waxaad ii soo bandhigtaa sanadka aad soo gelisay waa mid ka weyn 20. waxaan gelinaynaa 21. sidaan ognahayna 21 waxa ay ka weyn tahay 20. intaan markaan dhaho waxaan rabaa inuu ii soo kaco statementii ugu horeeyay ee ahaa sanadka aad soo gelisay waa mid ka weyn 20. saa arkaysaan halkan waxaa inooga muuqata sanadka aad soo gelisay waa mid ka weyn 20. mar kale aynu kicinno programka. waxaan u gudbaynaa xaaladii labaad ee ahayd haddii sanadka uu la eg yahay 20 waxaana la dhahay soo geli sanadka. waxaan leenahay 20 exactly 20 way la eg tahay 20. waxaad tiraahdaa enter. waxaan filaynaa inay inoo soo baxdo sanadka aad soo gelisay waa mid la eg 20. sanadka aad soo gelisay waa mid la eg 20. aynu u gudubna marka xaaladii ugu dambeysay. ugu dambeyn kici programka. hadda waxaan u baahannahay inaan soo gelino sanad ka yar 20. tusaale kale waxaan leenahay 15. 15 way ka yar tahay 20. waxaad tiraahdaa enter. sidaan arkaynana sanadka aad soo gelisay waa mid ka yar 20. casharkeena intaa buu inoogu egyahay. waan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen. intaan ku kulmi doono casharka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa in nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.